السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhammaan akhyaarta ku xiran channelkina Expo Option Somali. Insha Allah website-kan horaan uga soo hadlay baartuunkiisi uu dhex yaalay channelkeena. Haddaan soo daawo fadlan soo daawo baartuugis aynu ka hadlaynaa maanta. Okay. Baartuugis website-kan saa idiin xaqiijiyo website-kan waa website real ah oo aan fake ahayn. Resultiga website-kan historyga website-kan haddaan idinla wadaago lacag la bixitaankan ay lacagta la baxnay waxaa arkaysaa halka inuu noo yaalo receipt there. Receipt-kaas ayaa wuxuu yahay receipt-kina lacag la bixitaanka. Okay. Haddeenu cabinet-keena ku noqono waxaad arkaysaa website-kan inuu yahay website real ah boqolkiiba boqol website real ah. Website-kan taqriiban lacagta aynu kala baxnay waxay gaaraysaa meelahaas haddaan khaldanayn waxay gaaraysaa meelahaas adigu ilaa $50 meelaha bay gaaraysaa. Lacagtan website-kan aynu ku investment garaynayna haddaan anigu qiyaaso hadda taqriiban meelaha waxay gaaraysaa adigu meelahaas $5 meelaha bay gaaraysaa haddii $5 iyo badh aysan hayn. website-kan waxaad ogeedeen maalintii u horreysay aan ka soo hadlayay oo videoga soo gelinayay lacagtii u horreysay aan geliyey $1 bay ahayd wax saa weyn ma ahayn. lacagtii dambe aan ka daba geeyay haddaan qiyaaso meelahaas adigu waxay ahayd $4 meelahaas iyo badh meelahaas baan ka daba geeysaan filayo. Okay. website-kan saa idiin sheegay waa website real ah boqolkiiba boqol real ah. waxaan doonayaa hal iclaam inaan raaciyo. website markaad doonaysid inaad investment samaysid waxaa lagu siinayaa daily limit waxa la dhaho ama per hour waxa dhaha lagu siinaya. Okay. horena waa idinku sheegay waa idinla taliyay waxaan u maleynayaa fiidiyoyada dadka ardayda badankooda way isdhaafiyaan si maaragtay fiidiyowga dheer ugu soo gaabto. laakiin waxaan kuu sheegayaa waxaa ku dhex jira fiidiyowga aad dhaafinaysid hadallo muhiim oo aan kugu ogeysiinayo waxa aad u baahan tahay markaad doonaysid inaad web investment noqoto. Okay. anigu waxaa idinku yidhi 24 hours walba waxaa samaysaan withdrawal sameeya 24 hours walba withdrawal sameeya. haddaad tahay qof maartay $5 ee wixii ka badan gashaday 24 hours ka badan waxaa laga yaabaa inay ku soo gasho lacag gaaraysa $3 lacag gaaraysa laga yaabaa inay ku soo gasho ama in maartay income-kaaga lagu xisaabiyo. Okay. iminka website-kan haddaan dhaho $10 baan dhiganayaa maalintii ama $5 baan ka soo qaad haddaan $5 baan dhiganayaa 24 hours walba waxaa la siinayaa $1 iyo 0.5 maalintii waxaa la siinayaa $1 iyo $25 baa $1 iyo waxaa la siinayaa isagii 5 cents. Okay. per hour waxaa la siinayaa 5 cents. Okay. haddaan dhaho kaba soo qaad haddaan dhaho waxaa loo yaqaano ii sheegay 48 saac oo iska laba casho sugayaa waxaan la baxayaa $2 iyo badh lacaga. Okay. waa $5 lacag saa u badan maaha. $5 aad maalin dhaaf aad u samaynaysid $2 iyo badh waxaa laga yaabaa 4 casho gudaheed bay lacagta aad ka gashay website-ka kugu soo noqonaysaa wixii intaa ka dambeeyna faa'iidaad nuugaysaa. Okay. mid waa midaas waxaa ku yidhi anigu website-kan hadda ka hor website baan hadda ka hor waxaan geliyey saa idiin sheegay lacag maartay gaaraysa ii sheegay $92 oo replace aan kusoo sameeyey. website-kan kasoo hadlay midhood anigu soo dhigay baartigiisa $129 baan kala baxay. lacagta aan markii hore aan geliyeyna waa may dhammayn adigu $10 meelaha may dhammayn lacagta intaa leegna waan ka sameeyey. isagaan ku celceliyey faa'iidadiisii isagaan marba in kala baxay marba faa'iidadiisii ku celceliyey marba in kala baxay heer waxaan gaaray aan kala baxo $129 haddana ay ii taalo income $66 oo marba aan ku replace gareynayo. waxaan rajeynayaa inaad middaa fahanteen. website marka aad doonaysid inaad lacag ka faa'iido website-ka sida uu yahay baa loola dhaqmaa. lama dhaho meesha cryptocurrency ma joogtid cryptocurrency inta lacagta la gastaa la iskaga tagaa. laakiin waxaan waa web investment waxaa la sameeyaa lacagta waa la gastaa daily limit-kaaga waa lala baxaa per hour-kaaga waa la egtaa. iminka website-kan oo kale haddaad $10 dhigatid maalinta waa $2 badh markaad maanta $10 dhigato beriyo kale $5 baad la baxaysaa. beriyo kale haddaad tiraahdid 48 saac walba aan $5 la baxo lacag badan weeye. marka anigu sababtaan idiin leeyahay 24 hours kadibba ama 48 hours kadibba lacag la baxa waa sababtaan idiin leeyahay website-kan haddii ay lacag badan isugu kaa aruurto waxbay kaa goosanayaan way ku meemeerinayaan website-yada badankooda. hadda website-kan aan hadda hortaagana waxaa jira dhalinyaro badan oo lacag $100 kor dhaafis ay kaga jirto laakiin loo yaryareeyo oo maalin walba in yar loo saaro waa loo yaryareeyaa. marka waxaa rajeynayaa inaad middaa fahanteen lacagta inta laydin yaryareyn lahaa idinku yaryaraysta oo 48 hours ba la baxa 78 hours ba inta ka soo gaadhaan la baxa. waxaa rajeynayaa inaad middaa ila fahanteen iclaamkan aad fahanteen. fadlan dad channel ku cusub tahay subscribe like and share and comment wixii su'aalaad u baahan tahay waxaa rajeynayaa inaad commentiga igu weydiin doontiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.